I'd like to give the floor to Federal Republic of Somali, Mohammed Abdullahi Mohammed. You have the floor, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency Vladimir Putin, President of Russian Federation, Your Excellency Abdel Fattah al-Sisi, President of Arab Republic of Egypt, mudane Vladimir Putin madaxweynaha dalweynaha Ruushka, mudane Abdel Fattah al-Sisi madaxweynaha Jamhuuriyadda Carabeed ee Masar, ahna gudoomiyaha Midowga Afrika, madaxweynayaasha iyo madaxda xukuumadaha. Waxaa sharaf weyn ii ah inaan dhammaantiin khudbad idinkaga jeediyo kulankan taariikhiga ah ee u dhexeeya dawladaha Afrika iyo Ruushka ee looga gol leeyahay wada hadalka iyo iskaashiga kana dhacaya magaalada bilicdasan ee Sochi. Intaana hadalka toos u gelin, waxaan jeclahay inaan dawladda iyo shacabka Ruushka uga mahadceliyo soo dhaweynta diiran ee naloo fidiyay aniga iyo wafdigayga. sidoo kale waxaan dawladda Ruushka iyo Midowga Afrika oo ay hogaamiyaan madaxweyne Vladimir Putin iyo madaxweyne Abdel Fattah al-Sisi ku bogaadinaya sida guushu ku dheehan tahay ee ay soo qaban qaabiyeen shirweynahan. Mudanayaal iyo marwooyin, run ahaantii shirweynahani waa fursad dhab ah oo dib loogu eegi karo laguna sii horumarin karo cilaaqaadka taariikhiga ah ee Afrika la leedahay Ruushka, iyada oo loo marayo iskaashi iyo wada shaqayn si loo gaaro horumar iyo barwaaqo loo dhan yahay. maadaama adduunku aad isugu xirmay, walow aan ku kala naal laba qaaradood oo kala duwanaansho badan u dhaxeeyo, haddana mustaqbalkeenu aad ayuu isugu xiran yahay. sidaasi awgeed waxaan ku rajo weynahay in shirweynahani uu u gogol xaaro in la helo hannaan cusub oo suurtageliya wada shaqayn iyo iskaashi minadhar ah, taasi oo keenaysa in la gaaro ajandaha aan wadaagno ee ku aadan xaqiijinta barwaaqa sooranka. Ruushku waa saaxiib taariikhi ah oo ay Afrika leedahay, sidaasi darteed shirweynahani waxa uu ina xusuusinayaa muhiimadda ay leedahay dib u soo nooleynta xiriirkan taariikhiga ah ee u dhaxeeya labadeena dhinac, maadaama oo aan ku raad joogno dib u soo celinta tagtadeennii qurxunayd. waa inaan laba jibaarnaa dadaalkeenna si aan u xaqiijinno in cilaaqaadka cusubi ee labadeena dhinac ay ka dhashaan fursado waxtar u leh dalalkeenna iyo shucuubteenna. sidoo kale waa inaan adkeennaa iskaashiga dhanka dhaqanka iyo wax-isweydaarsiga si fursado aan ugu abuurno dawladaheenna, hay-adaheenna iyo muwaadiniinteenna si ay u horumariyaan xiriirka saaxiibtinimo ee u dhaxeeya, iyadoo ay taasi ku lamaanan tahay in la helo iskaashiyo micno leh oo lagu dardargeliyo ganacsiga iyo hal-abuurka oo faa'iido inoogu jirto innaga iyo jiilasha mustaqbalka. mudanayaal iyo marwooyin, Soomaaliya iyo Ruushku waxa ay leeyihiin cilaaqaad taariikhi ah oo furo u noqonaya iskaashigeenna maanta. Soomaaliya waxa ay doonaysaa inay xoojiso xiriirka labageesoodka ah ee ay la leedahay Ruushka iyo inay la shaqayso Midowga Afrika si loo hubiyo in guul laga soo hooyo xiriirka labadeena dhinac ay la xiriiraan dhammaanba dhinacyada kala duwan ee labada dhinacba dheefta u leh, ha ahaato la dagaalanka argagixisada caalamiga ah, dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga, iyo isweydaarsiga dhaqanka iyo aqoonta, iyada oo ay wada shaqayn yeelanayaan hay-adaha labada dhinac. mudanayaal iyo marwooyin, Soomaaliya waxay cagta saartay dhabbada xasiloonida iyo dib u soo kabashada dhaqaale. waxaan leenahay kheyraad tiro badan oo dabiici ah iyo kuwo aadami, dhul baaxad weyn oo beerashada ku fiican, badda ugu dheer gudaha dhulka Afrika, bulsho da'yar oo fursad raadis ah, iyo dawlad ay ka go'an tahay inay isbeddelka hirgeliso dalka iyada oo adeegsanaysa hogaamin wanaagsan oo ay udhexaad u yihiin mabaadi'da dawlad wanaagga. sidaasi awgeed waxaan dhammaan maalgashadayaasha Ruushka iyo kuwa reer Afrika ku martiqaadayaa inay yimaadaan oo ay soo sahmiyaan fursadaha badan ee Soomaaliya ka jira, kuwaasi oo leh faa'iido mustaqbal oo waarta. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan jeclaan lahaa inaan hadalkayga ku soo gunaanado aniga oo dawladda Ruushka iyo Midowga Afrika uga mahadcelinaya uguna hambalyeynaya shirweynahan miradhalka ah. Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay la shaqayso dhammaanba dhinacyada shirkan si iskaashiga Ruushka iyo Afrika loo sii horumariyo, iyadoo ay ujeeddadu tahay in la gaaro barwaaqo iyo horumar loo dhan yahay. sidaasi si la mid ah, dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay soo dhaweynaysaa bayaanka warmurtiyeedka shirweynahan, waxayna u aragtaa inuu yahay qoraal muhiim ah oo jihaynaya arrimaha Ruushka iyo Afrika ay isla xaqiijin karaan si hore loogu socdo. waad mahadsantihiin.